wallaahi inaan wanaagna la gaarsiinayn. war walaalayaal haddaad dhimataan cajalihiina heesaha laydinla duugi maayo, qabriga laydinla gelin maayo, waxay idin anfacayaan ma jiro. war rasuulka ilaahay diintuu idin keenay barta, war aayadaha ilaahay ku dhaqma oo ku camal fala, war diinta ilaahay kor u qaada. rabbi hortiisaa la tegaa, waa lais xisaabayaa. fanaaniinta kulli dhinac ayaa loo bixin doonaa, in allaale intii raacday oo ay dhumiyeen dhinac ayaa loo bixin doonaa. way raaci doonaan oo waxay dhihi doonaan ilaahayow kuwaan ayaa na soo dhumiyey, ilaahayow kuwaan ayaa jidkii toosnaa naga leexiyey, ilaahayow kuwaan ayaa sidaana yeelay. hana qabsaninay idin leeyihiin. annagu awood aan idinku dhumina ma lahayn, annagu ma lahayn wax sultaana iyo xujo aan idin keensanay, annagu ma jiro waxyaabo awood ah aan lahayn. idinkaana soo raacay, annaganay soo raaca idinma dhihin, waan idin wacnay idinkaana ajiibay. war maantaana dagaalinee naftiina dagaala, naftaadaad dagaalaysaa qiyaamaha marka la gaaro. adiga ayaa qoomamo iyo shallay geli doona, adiga ayaa dhihi doona maxaa kuu geeyey waxaan samayntooda, dhegaysigooda maxaa kuu geeyey. marka malaa'igta la amra inay ku qabato oo ay ku jiido oo cadaabka lagu geeyo, maalinta noocaas ayaa kuu soo gurmanaayo. qabiil maad isku halaynaysaa oo kuu soo gurmanaya ma jiro, xoolo maad isku halaynaysaa aad isku furanaysa malaha, owlaad maad isku halaynaysaa aad ku furanayo kaa badbaadinayo ma jirto. war meeshaa ma jiro ilaa qofka diinka alla raaca maahane subxaanahu wa tacaala. haddaad isleedahay qabiil ayaa kuu soo gurmanaya oo wax kuu anfacaya oo wax kuu tari doona, rabbi muxuu yidhi falaa ansaaba baynahum yowmaidin walaa yatasaa'aluun. nasab sheegasho, qabiil sheegasho, isu soo gurmasho ma jirto dhexdooda, mana isi su'aalayaan.